Sheekh Boqolsoon oo ah walaalka la dhashay Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Rooble ayaa 30 sano ka hor sidaan yiri ka cabso rasuulkaaga raac rugta qabriga marka lagu dhigayaan lagu celinin waa arinta adiga kuuran oo dan ugu jirto haday qalbiga kaaga jirsan nacayb aan islaamka u haydin ama dadka diinta sheegaya aan islaamka maxayda u sheegaya diin u sheegaya inta haday kugu jirto waa adicay daayadooda oo marka lagu wada qotlaya ama taas bay noqdeen ma waxa ku jirtay waxa dunkana waa ku cadaabantay تعالى وبركاته لما أصحاب ونيوز السلام ملك الدنيا دافع عالم قاعد كجوكت أنا هالكن نقدر داو نقل ساعتنا وحسين جرماني فالله هديتكم عصب تسمى سكراب لكم بليل كفروسيات ونقطة داو قورة سمر البنو عنو مهم لايك شير كومنتي كنوادي ركليها بالشدينا xogaha aan baahin haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa arrinkii baraha bulshada xasradda ba'anka kiciyay ee Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Rooble walaalkii ka yaraayo Sheekh Boqolsoon oo yiri asagoo muxaadaro jeedinaya sheegay dhilay iyo dhilay eragaasi oo dadka qaar u arkeen inuu sheekhu uu anshaxay diinta ama culimada lagu yaqaanay oo ka tagay meelna uga dhacay dumarka Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed qayb kamid ah sheekhi oo ka jawaabay eraga dhilay waxa uu la jeeday iyo meesha uu ka keenay bal ila daawo jawaabta uu bixiyay sheekhu aanan u gudogelin jawaabta bal ila daawada hadalkii carada faraha badan dadka qaarkiis ku abuuray ee uu sheekhu horey u sheegay si aad u fahantaan meesha wax ka soo bilowdeen iyo meesha ay ku dhamaadeen dhilay waa dhiloodin hal loo sheego waa dhiloodin kuwa badda isku soo dabaalanaya waa dhilooyin footooyinka kuwa isku soo sawiro qof eeganayo inta meesha gashada waa dhilooyin hal loo sheego waa dhilooyin ha ogaadaan anu ma dhihin waa dhilooyin gabadha ajnabiyada ma iska daawanaysa dhilay baa tahay nin ajnabiya ma daawanaysa dhilay baa tahay bal haddana daawo jawaabta uu ka bixiyay hadalkan sheekhu dadkii deelanimada diidanaayo kelimada basadeen waa ka azaani dhilay iyo wazaaniyatu dhilayni azaani sharmuutag iyo wazaaniyatu sharmuutayna wariyaa luqada soomaa sida aad soo wada daawateenba sheekhu waxa uu fasiray aayad quraana azaniyatu wazani marka aayadaas quraanka la fasiro oo kalaamullaahi ah hadalka Allah subhanahu wa ta'ala alihi adiga ku abuuray anigana abuuray sheeqana abuuray makhluuqaadka oo dhan abuuray wax walba u wanaagsan iyo wax walba u xunna yaqaana janna gooyay kitaabkiisana ku sheegay wax Allah wixii bini aadanka iyo makhluuqaadka wixii uguna wanaagsan qaada lahaayeen sida ugu wanaagsan Allahi ula hadlay Allah subhanahu wa ta'ala ayuu hadalkiisa sheekhu soo qaatay hadalkaas oo ahay azaniyatu wazani markii la fasiro waxa waaye dhilayga iyo dhila sharmuudka iyo sharmuutada eragaas sheekhu aflagaadana kuma ahan qaladna kuma soo gelin luqadii annagu aan ku hadlaynay azaniyatu wazani markii carabi ahaan ay u tahay waaye anaga luqadda Soomaali ahaan dadku ay fahmayaan waxa la rabaa dadku wax ay fahmayaan aad wax u sheegto dadku waxay fahmayaan Soomaaliga aan fahmaynay waxa uu yahay sharmuud iyo sharmuutay marka dadka baraha bulshada culimada ku duraya sida sheeqan oo kale oo dhahaya sheekhu waa afxun yahay waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada haddaad erayga sheekh qofka wax kale waa ku dhaliili kartaa laakiin eraygaas haddaad ku dhaliisho ogow inaad leedahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa afxun ama nabigiisa sallallahu alayhi wasallam ayaa afxun waana eray halis ah diinta islaamka halis ku ah iska ilaaliye Ilaahay subhanahu wa ta'ala si aan fahmin ayuu wax noogu sheegay Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baqno balan si dhigay hadalka sheekha ma sha Allah laga yaabtaa in uu diiray oo sheegay taasna waa Soomaaliga tiin luqadiina ayaga ku fasira xaaladuna waa sida xaqiiqaduna waa sida wala xanayo inta xanayo inta korsi دين فنبقى وحي وكحنالا إلهي تلبس في المعاصرة والصمعين وكحنالا ذلك إذا أهلك إيمنا يلين حاسسين وحمدا قلت إلى الصمعين وكحنالا إلهي تلبس الله سبحانه وتعالى وحولي فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واني واندو أنفع ذا تدك مؤمنين تا
إن شاء الله وحن رجينا دتك مؤمنين تهوانا ذا علماء قاعدة دونا ويا علماء العلماء ورثة الأنبياء علماء وح وضعوا وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي الله دتك قاعدة دونا مؤمنين تأنا نقدون بلانس سيدا وانا وح أو شيء بقالصون أصلا كي يريد دتك علماء آياتك إلهي بيني واحد بين سورة النور إلى سورة الأحزاب ربنا كل جيل درك أولو كبير إسكدي يا إسلامتي إسكدي يا إسلامتي عايز إسلام كأول بنيسنا فرها لقطار وهذا يدري يقول حرام تعديل لقاري بحنا سيجار كعامل جيل دولا وحاسي رصيب المسكي والله صاريسي والسيجار كوحابس يا دين وقوت الأولياء أولياء الشيطان وياه هي خاك وحقنا أولياء الشيطان أحد كان آياتك ربي كنا منه ألبابك نار توقفنا كاوي عليتون waxyaabaha diinta ku saabsan ka hadalkooda qof walba waa ku degdegin wixii aad aqoon u leedahay mooyee wax ka celinaya oo ka xigta doona albaabka naarta ma jiraan ee rabbigaaga raxiimka ka cabso rasuulkaaga raac rugta qabriga marka lagu dhigayaa lagu celinin waa arrinta adiga kuuroon oo dan ugu jirto hadday qalbiga kaaga jirto nacayb aad islaamka u haydid ama dadka diinta sheegaya aad islaamka maxay dadka u sheegaya diinta u sheegaya inta hadday kugu jirto oo aad jeceshay dacaayadooda oo marka lagu wala qoslaya masaas bay noqdeen ma waxaad ku jirtid waxa adduunkana waa ku cadaabantay aakhirana waa ilaahu adduun iyo aakhiraha nagu cadaabkaaga uma adkaysan karna addoommadaadaan nahay soo dambe oo ku xigtana maxkamad alle oo aan racfaan iyo looyar iyo kuudoole iyo laaluusid midna lahayn baad tegi doontaa meel dambe oo laga soo laabsan aan lahayn caqli yeelo oo shaqayso qofka caqliga leh waa qofka ka fikira waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala beri la hor istaagi lahaa rabbi ma arkayaan naarta jaxiime la yidhaah ayaa laleeyahay gala waa midaad ahaydeen kuwa beeniye dadka noocaas loo ornaya waa dadkeen waa kuwa allah aayad kale ku yidhi wayawma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda alaysa fii jahannama matwan lilmutakabiriin rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam wuxuu fi iyaakum waddukuula cala annisaa فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت أقبل الله وحولي يا سبحانه اسكتيرا وإن كيكتير يا دمرك أجنبياتك لو قلت له أو قلت دمرك أجنبياتك قبلها أجنبياتك يا رجع أجانبك وصلي إلى المهرب السويه isugu gelgelaya rasuulka alla waa diidayahay sala allahu calayh wasalam oo nabigu sal alla ly slam uu diiday inaan diidna badbaadadeenna ayaa ku jirta wuxa uu nabigu yeelay sal alla alay wasalam inaan yeelnana badbaadadeenna ayaa ku jirta kuwa jecel inay xumaantu faafto rabbigiina uga cabsada saacad kasta waxa laga sheegayaa culimo weeye waxa laga sheegaya ahad diinta alla u adeegaya weeye fanaaniinta waxba lagama sheego laakiin saacad kasta waxa laga sheegaya ahad diinta alla u shaqaynaya weeyaan rabbigiina uga cabsada rabbi wuxuu dhahayaa jalla wacala isagoo digaya kuwa xumaanta faafiya ee qayrka qarinaya ee xumaanta faafinaya wuxuu allah jalla wacala oranaya ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هو الجعل إلى حمان تفافته ومدو فسهاده وحمان إن وحوه يكفى في الجعل وغير كقارنية كواس وحي الجعل إلى المسلمين تدحدوا ذا مؤمنين تحمان تكون دحفا فيان والله أرنيا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كواس وحي إليه الدنيا آخرة بعذاب إليه ربنا واقرنيا لك يدكم وتغنان هاي كوا ساعد والبا علمada dura oo saacad walba wax ka sheegaya midka heesa iyo midka xumaanta faafinaya aan waxba ka sheegayn nafican warka hay kuwa fanaaniinta iyo kuwa fisqiga faafiya saacad kasta waa la amaana laakiin culimo looma ogola waxa u balay absanno aniga oo nafteeda ka bilaabay culumada caayadaha laga daayo culumadu waa dadka ambiyada dhaxlay culumadu waa dadka diintan suubana islaamkana soo gaarsiiyay والله الدين تناس هل كان جوكتنا هديس علومنا سو غارسيلين إلهي سبحانه وتعالى أنك بغن إلهي سبحانه وتعالى حمانتي ميل والبا أي كفافتي حمانتاس ميل والبا كفافتي ولا حداد أدوك كهلي كرين علومنا كهليدا أي حق الشيغيدا إلهي سبحانه وتعالى ددك ugaddigeyda حمانتا iyo fasaadka iyo dhibaatada ay leeyihiin iyo cadaabka biridan bay wala aduu hadurin oo culumadaas ka leexo wala wanaaga isku kaalmaysta إلهي سبحانه وتعالى كبقى ربي سبحانه وتعالى وحان كبرينا
inuu wanaaga ku iska kaashada xumaantana isaga diga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala meel walba ummadda muslimiinta ay joogto qulubtooda ha isku soo dumo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa meel walba ee adduunka ay ka joogaan dadka muslimiinta inuu ilaahay qulubtooda isku soo dumo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu qalbka noo hagaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu diintiisa na jeclaysiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa dadka diinta inaan na jeclaysiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dunuubteena dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dunuubta aanan ogeyn iyo kuwa aan ognahay ee aan maalin walbaba galno qof aan dambaabin ma lahan dadku waa ay dambaabaan waxaase ugu khayr badan uguna fiican qofka dembigiisa garta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena ilaahay subxaanahu wa tacaala